Bismillah magacaygu waa Aamin Maxamed Iikar waxaan dhigtaa iskuulka Sacaada gaar ahaan fasalka lixaad. magacaygu waa Jana Khaalid waxaan dhigtaa iskuulka Sacaada waxaan soo jeedin doonaa su'aalo diini ah. Su'aasha koowaad waxa waaye mal islaam maxaa waaye? الإسلام هو الدين الذي بعث الله به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهداية الناس وسعادتهم. إسلامك waa diinta uu Alle u soo diray nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam si uu ugu hanuuniyo ayna ugu liibaano. Kama arkaanul islaam tiirarka islaamka meeqa waaye? أركان الإسلام 5 tiirarka islaamka waa 5 shahaadatu an laa ilaaha illa Allah wa anna Muhammadan rasuulullah in la khayr ilaahay mooye ilaahay kale inuusan jirin low Maxamedna rasuulka ilaahay inuu yahay iqaamatu salaada in la ogo itaau zakada in la bixiyo wa soomo ramadaan bisha ramadaan in la soomo wa xajul beyt lilmustadiic beytka ilaahay in la xajiyo qofkii awooda maa macna ashhadu an laa ilaaha illa Allah macnaheedu maxaa waaye? معناها أعتقد أن الله وحده لا شريك له في العبادة ولا في الملك. معناheedu waxay tahay waxaan rumaysanahay Alle inuu hal yahay wax la rajinahay inuusan jirin cibaadadiisana wax lala wadaago ma jirto boqortinimadiisana wax lala wadaaga ma jirto. ما معنى أشهد أن محمد رسول الله maxay tahay macnaha laga wado أشهد أن محمد رسول الله؟ معناه أعتقد أن سيدنا محمد رسول الله لجميع الخلق ويجن طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهي عنه waxaan rumaysanahay inuu Maxamed inuu yahay rasuulka Ilaahay rasuulna uu yahay dhammaan makhluuqaadka waxaana waajib ah in la adeeco wuxuu amray iyo in la rumeeyo wuxuu noo sheegay iyo in laga fogaado wuxuu naga reebay barnaamijkeena halkaas ayuu nagu ogyahay mahadsanidin.